KISMAAYO. That's right, guys. KISMAAYO and the development happening here. Welcome. You're watching Integration TV, the first English television for Somalis around the world. Welcome back to Integration TV. We are still here in the marketplace. We're going to show you around a little bit more, but I want to tell you, I was actually here yesterday and I had bought some clothes because the local attire is this. This is what the women here wear, and this is the vibrant colors they show. So let me go and actually the store. The woman who told me yesterday I was wearing an abaya and a full hijab, fully covered, and she was like, you need to come back with the right clothes. So I'm going to show her what I'm wearing today and see what she says. Hey, assalamu alaikum. Fatima. ما يقرأته فادوما باشلا إسبراني أي فادوما باشلا إسبراني فادوما وحي قلتري صون نقو أضو أسورن هيا فادوما كورن ما شاء الله ما أنت ميدو أنيسا dadkaaga waxaan fac ma sha Allah haye gabdhaha qurbaka soo laabto maxaa ku waanisa inay dalkooda imaadaan haye haye intooda qaataan haye soo kici kartaa ma soo kici kartaa okay su'aana ku soo dhawaanaya oo qurbaka imaadaan ha shalay waxay igu tiri oo xijaab dhanba xina shalata waxa tir may soo noqo adoo wala kan mid fiican xiro ma sha Allah mid ka si fiican ya ka si fiican insha Allah gacmaha waa inaa soo xidhaahdo gacanaha soo barkayso soo gabdho badan markay soo laabtaan qurbaha ha maxaa ku tiraahdaa dalkeena iyo dadkeena iyo ka imaada dibadda ka imaada iyo dhaxanta iyo barafka Soomaali ma taqaan ha maxaa ku dhahdaa gabdhaha gurbaha gaaladii saas markaa soo dhigino bas afka beddelka okay maxaa tiri haddana af Soomaali aqoon Soomaaliga gargaar ka noqoto Soomaali haye maxaa tartiiban ka bilaabayaa de xijaabkaaga xiro maamada kale shalayto diinta igu caayisay maamada kale hadda afka Soomaaliga igu caayisa maxaan ka soo laabanayna hadina la caayayo ma ladin caayayo wanaagsan afkiin waa bedelmaan ku iri xaga afkoos uu bedelay dad kale ku dhex jirnay maxaan ka sameyn karnaa ani leema duuba ilaahay Allah meel oo dad qurbo ku joogaan ana ilmahayga jiro walaalahay oo dhan baa jiro soo biil may ku soo diraan ma ima soo diraan shaqada meesha joog ma joodido biil kuma soo diraan waxba wallahi maxaa ku tiraahdaa waxba ii soo direen ha ma barabi lacagteena oo aad ka qaadataan cayrto dambigeeda mar waa shaqeyn qaana maxaa dadka waxaan rabaa inaan u furo meel oo macnaha shaqada sida loo shaqeyn karo ha dadka ma yaqaanaan xaggan saas maya
sida loo shaqeyn karo inaan dadka baraan rabaa maxaa oo shaqada qofka binaadamka inay jaamacad isma صح dad baa jira jaamacad ka soo baxo waxba aqoonin shaqada waxaan rabaa inaan dadka intaan dhoo kaalay ay shaqo bare baatiga sida loo jiro dharka sida loo soo qaato sida deynta loo qaato sida la isaga celiyo sida looga faa'iido ya صح ما شاء الله waqti quraankaaga waqti tafsiirkaaga waqti waxbarashadaada waqti هذا وحكي لكم مشغولين. آمين. Well, thank you so much. I'm Hassantahay. Live from KISMAAYO, you're watching the best of Somalia on Integration TV. Welcome back to Integration TV. Our tour of KISMAAYO continues. We're going to check out businesses in KISMAAYO and what they're doing to innovate themselves. We are at the Ka Fishing Company now. This is cool because we have been not exporting fish for a long time. And 2006, they started this operation, and just recently, they've done something to innovate the game here for the local fishermen. So let's go inside Ka Fish Company and find out what they're doing. This is exciting. Wow. This company was started in 2006, not long ago, but they have employed now over 30 people, and we're going to check out what they're doing. أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد محمد. شو ونكسن؟ برجو ونكسن. وحتى هاي دتك كم ده؟ معمولها الشركة دكاه. وحن كشغلنا كلونكا. دتك كلومة ستدعى كيسمايو أي كلونكا سوق قبته. أنا وان كجذنا وان بروسس جرينا وان دوفينا. ما شاء الله. وحقودو في سنة أنت بدن كينيا هذا. أوكي ما شاء الله. kalluumaysatada hadda ka hor ma aysan haynin meel qaboojiye ah oo lagu process gareeyo Kismaayo kalluunka shirkadda ugu horeysay ee qaboojiye iyo system processing keena ayaan nahay kalluumaysatadana faa'iido badan bay u leedahay hadda ka hor kalluumaysatadu mayna suurtagelin inay kalluun badan soo saaraan qaab loo hayo ma jirin qaab loo process gareeyo ma jirin uu ka xumaanay hadda laakiin intay rabaan bay keeni karaan. MashaAllah. So guys, before this company, there was no way to freeze the fish and store it and ship it. Now they have it. Yes. Let's look at the freezers. Yes. I can't believe this. Wow. Look at all the stuff that we get in this country. Look at all these brands of, wow. We're inside the freezer. It's minus what, 20 here? Minus 20. 20. But look at this big fish. Wow, this is tuna. Tuna. Are you sure? It looks like a shark. This is so cold. I'm so happy we live in a hot country in Somalia. This is, wow. And it can't come back now. This is really cold. Yeah, it can. Let's get out. Oh, that was so cold. That was minus 20. But there's another freezer that's minus 40, and it's right over here. So this one, how many? Inte blow the hand is minus 20. adig markii diyaarinaba waa la sii qaado. Waa sii qaada. Wow, so it's fresh basically. Yes, if it's ready, it's gone. Okay. Kan waa minus 40 hadda ma shaqeynay. Okay, minus 40. Markuu kalluunku fresh yahay hadda la soo qabto yuu adkaynaya waa la gelinayaa in 6 hours wuxuu ka dhigayaa dhagax. Then store ka la gelinaya. Store ka leeyahay then waa sii iibinaysan. Okay, so hadda fishing, it's not fishing season now in November. Kalluun badan baa soo baxay badda. Yes. Okay, mashallah. Day waxaa laga yaabaa inuu yimaado 5 to 10 ton. Wow, mashallah. So berigii hore markay freezer haysaneen maxay sameeyeen dadka? Dadka waxay soo qabsadaan waxay suuqa ku gadi karaan way gadeen inta kale way qalajin jireen. Kalluunka waa la dry fish. But dry fish you will lose the weight. waa sax skinny buu noqdaa. Waxaan la yaabay also dadka Soomaaliya daga, the people who live in Somalia don't eat much fish. So dad badan kama iibsan jirin ba. Suuqu aad buu yahay. Suuqa Kismaayo 1 ton to 2 ton waa. Wow. Hadday 10 ton keenan 8 ton baa ka lumaysa. Dadka ma iibsanayaan. kalluunka waa caafimaadka ugu badan adduunka maxaa loo nacay hilib iyo caano baa la cabaa geel wacyigelin in la baro waana la wada hadda hay'aysiisyo wacyigelin postaro waan wadnaa dadka inay kalluunka isticmaalaan. So we have to do marketing to eat fish. Loo
A lot, yeah. That's so nice. Okay, nakin bananka, I'm interested to see mesha kalunka so galan outside. qaababkan u They have more jarjarro wax ma ka freezer? sheegna? Okay. Yeah, sure. Ah. What is this one? More freezers? No, this one for the local market. Oh, the local. Okay, so the Yeah, locals, they this, eat tuna, right? Kan waa tuna, waa finger. Waa qofba dooqiisa inta waa la cunaa. Fileti waan ka dhignaa, finger waan ka dhignaa. Wow. Spessatino, magana qaabka loo jarjaro waay. Oh, there's lobsters in here. Kaman kara lobster kan. I'm afraid to touch it. Oh. So you freeze everything. Yes, waad qaadi kartaa. Papakayate. Haddii igu soo boodin. Weyn misatee ma noole. Oh no. Wow. This is frozen. Wow. Mashallah. Kan waxaa waaye waa finger. Kan waa fileti waaye. Kan waxaa weeyaan spessatina leh. Saasaan u jarjaraa local market. So Hoteelada. Is hoteelada Xaafadaha. Ha. Okay. Inta ayaan ka iibinaa. So inta badan, but Kenya ka iibsan because dadka Kenya ba kalluunkeena jecel. Okay. Amazing. Let's go outside now. This is all the plants here. Yes. Marka fishka la keeno. Kan waxaa weeye waa generator. Oh wow. Korontada. Oh, for the power car. Yes. Wow. Kaas waa ice machine Ice machine. oo kalluumaysatada badda markay aadaan. Yeah. Ice baan siinaa. Marka ice kaasay kalluunka ku soo ridaan suuna u halaabay. Wow, look at this view. This is amazing. So business ka badda hortiisa ba yaala, mashallah. Wow. Halkan ay soo istaagaan. Yeah. Baabuur baa loo geynayaa kalluunka lagu soo qaaday. Wow. Qaybtana la keenay. Mashallah. Marka Quruxda wadankeena daawada. It's beautiful, yeah? Okay, so let's waa yaabsanahay aniga. So hadda waxaan arkay hashan oo xaggan taala. Xagee ka timi waxaan? This is history waaye. dawladda Soomaaliya iska lahayd qaybta kalluumaysatada maraakiibtii lagu kalluumaysan jiray ka mid ahayd. Qaybtan waxaa ku ooli jirtay qaybta kalluumaysiga. Marka sektorka kalluumaysiga xilliga aad buu xoog badnaa. Thousands of ton baa la qaban jiray. Amazing. So if you look around the back of here, you'll see this is the old boat from the former government. Look at this history. Do you think Somalia is sidii hore ku soo noqonaysaa walaal? Yes. Inshallah, yeah. Inshallah. We hope. Yes. Soomaalidu hadda ka wacyi badan tahay xilligii hore. Yes. Dadku ka aqoon badan yahay. Sax. Waayo aragnimo badan baa dagaalkii laga qaatay. Wallahi waa run. So adduunna waa soo aragnay. Adduunna meelo badan bay dadka Soomaalidu tageen. Sax. Marka we got more hope now. Inshallah. 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 Anyways, guys, it's been so amazing coming to KISMAAYO. We're at the car fishing company, and I'm always hopeful that our great industries can be revived, rebuilt across our nation. And more importantly, in KISMAAYO, because this place is beautiful. Integration TV from KISMAAYO.